Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xiran janaalka layaabka media ee YouTube. Kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena maanta. Waxaan ku soo qaadan doonaa 10 qof ee ugu buuran caalamka. Ka hor inta aanan bilaabin muuqaalkan, fadlan like saar muuqaalkan, subscribe na dheh janaalka. Aad ayaad u mahadsan tahay. John Brawer Minaj dabcan miisaankiisa ayaa ka badnaa 635 kiiloogaraam, wuxuuna noolaa 1941 ilaa 1983. Wuxuu la dhibtoonayay jirkiisa barar aad u weyn. Jirkiisa wuxuu lahaa ugu yaraan 408 kiilo oo dareere ah. Bararkan ayaa la dhiban dad badan. John Brawer ayaa ku seexda sariir ay ku seexan karaan 13 qofood. Ninkan ayaa noloshiisa oo dhan la halgamayay miisaankiisa, wuxuuna ahaa 317 kiiloogaraam 1963. wuxuu noqday 1966 442 kiiloogaraam. John Brawer ayaa dareemayay wadne xanuun, waxaana la dhigay isbitaal markii uu jiray da'da 37 sano jir. Wuxuu dhimayay miisaankiisa maalin walba, wuxuuna noqday 362 kiiloogaraam. Wuxuu ka tagay caruur iyo xaaskiisa Janet, wuxuuna dhintay John Brawer Sebtembar 10keeda. Dazambik Katakaf ayaa ka soo jeeda waddanka Russia, wuxuuna jiraa 11 sano, waxaana loo yaqaanaa Jambik. Wiilkan ayaa ka haysta buurnaanta rikoorka buugga dhacdooyinka caalamka, wuxuuna culeyskiisu yahay 147 kiiloogaraam. Dhirirkiisa ayaa ah 157 sentimitir. Markuu dhashay miisaankiisu wuxuu ahaa mid macquul ah, balse markay soo gaartay da'diisa 1 sano jir ayuu culeyskiisu noqday 13 kiiloogaraam. Markuu 3 sano jirsaday, wuxuu bilaabay inuu kor u qaado miisaanka 3 kiilo oo culeys ah. Markaas kadib, Dazambik ayaa bilaabay jalaato cunis badan, wuxuuna sii noqday culeyskiisa 51 kiiloogaraam. Dazambik ayaa noqday mar kale culeyskiisa 71 kiiloogaraam. Markuu jiray 6 sano, hooyadiisa ayaa aaminsan in wiilkeeda Dazambik uu sii weynaanayo. Wiilkan ayaa bilaabay ciyaarta lagdinta. Isbuucii 5 maalin, wuxuu sameeyaa dabaasha si la mid ah. Terry Smith, doctorka ayaa u sheegay haweeneydan haysata halka cunug. Terry oo culeyskeedu yahay 317 kiiloogaraam ayaa loo sheegay inay iska dhinto culeyskeeda ama dhimato. Waxay la ildarneyd madax xanuun aad u daran, waxayna u baahneyd baaritaan maskaxeed. Iyada oo aad u weyn ayay gali weyday mashiinka MRI. Terry oo jirta da'da 49 sano ayaa sariirta saarneyd muddo 3 sano ah. Terry ayaa ahayd markii ay jirtay 7 sano 51 kiiloogaraam. Terry markii ay gaartay 32 sano, dhowr tilaabo ayay socon weyday, waxayna ka xanuunsaneyd kala goosyada. Terry Smith ayaa ku dadaalaysa hadda sidii culeyskeeda iskaga dhimi lahayd. Robert Errol Hughes ayaa dhashay 1926. Inta uu noolaa waxaa loo diiwaan geliyay qofkii ugu cuslaa taariikhda dunida. Wuxuu gaaray miisaankiisa 480 kiiloogaraam markii uu jiray da'da 6 sano. Culeyskiisa ayaa ahaa 92 kiiloogaraam. Markii uu gaaray 10 sano, wuxuu noqday culeyskiisa 171 kiiloogaraam. Roberto wuxuu dhintay 1958 da'diisa oo ahayd 32 sano jir, wuxuuna ahaa miisaankiisa markuu dhimanayay nus tan oo culeys ah. Kenneth Bramley markii uu ka soo muuqday Channel 4, wuxuu helay dareenka dadka dunida. Wuxuu ahaa aabe ay u joogaan 4 caruur ah. Wuxuu sariirta saarnaa muddo 4 sano ah. Culeyskiisa ayaa ahaa 468 kiiloogaraam. Wuxuu ku jiray isbitaal ku yaala Texas. Wuxuu aqbalay tubo in loo marsiiyo caloosha. Ninkan ayaa iska dhimayay culeyskiisa maalin walba. Wuxuu 40 maalin ku dhimay 72 kiiloogaraam si looga saaro burooyin dhan 18 kiiloogaraam oo ku yaala lugihiisa. Kenneth Bramley ayaa ku qaatay qaliin 5 saacadood in looga saaro burooyinkii. Daqiiqado kadib wuxuu awood u yeeshay inuu ku istaago lugihiisa. Manuel Uribe. Manuel ayaa ku dhashay Monterrey, Mexico sanadkii 1965. Wuxuu caan ku yahay inuu culeyskiisu la faaciyay 6 rag ah. Culeyskiisa ayaa ahaa 597 kiiloogaraam. Wuxuu sariirta saarnaa tan iyo ilaa 2001. Manuel ayaa markuu yaraa culeyskiisa caadi ahaa
Markuu gaaray da'da 20 sano ayuu badsaday cuntada. Kadib 1927 wuxuu u aaday Mareykanka shaqo wuuna guursaday. Markii dambe Manuel ayaa iska dhimay culeyskii badnaa ee saarnaa, wuxuuna noqday 360 kilogaram. Caawinta digtoorada, Manuel ayaa geeriyooday 2009 waxaana la sheegaa in uu u geeriyooday culeyskii uu iska dhimay. Paul Mason ayaa culeyskiisa ahaa 980 pound oo u dhiganta 444 kilogaram. 51 jirkaan ayaa mar loo diiwaan geliyay ninka ugu buuran caalamka. Paul ayaa cuni jiray 10 jeer maalintii cuntada, wuxuuna sheegay in uu iska joojin waayay cuntada asigoo ogaa inay dilayso cuntada. Dhimashada aabihiisa kadib, Paul ayaa dareemay wadne xanuun marka uu gaaray da'da 20 sano. Paul ayaa cuni jiray cuntooyin sanadkii lacag ahaan gaaraya $47,000. Paul ayaa iska dhimay culeyskiisa 560 pound marka lagu sameeyay qaliin, kadibna waxay kala tageen saaxiibtiisa 2018. Markaas kadib wuxuu bilaabay cuntadii uu cuni jiray. Paul Mason ayaa sheegay in uu miisaankiisa 2 jibaarmay. Dana Simpson, 45 jirkaan ku nool Mareykanka. 2008 Dana ayaa loo diiwaan geliyay haweeneyda ugu culus, waxayna samaysatay website lacag ah taageerayaasheeda ee ugu soo bandhigtay cunadeeda. Culeyskeeda ayaa ahaa 1000 pound, laakiin 2008 ayuu noqday culeyskeeda 630 pound, balse mar kale 2010 ayuu noqday culeyskeeda 602 pound markay dhashay gabar loo bixiyay Jacqueline. 2010 ayaa mar kale loo diiwaan geliyay haweeneyda ugu culus ee caruur u dhalata. Inay u dhalato gabarteeda waxaa ka qayb qaatay 30 digtoor. Dana Simpson xilligan waxa uu joogo gabar iyo wiil. Dana ayaa go'aansatay inay culeyskeeda iska dhinto, waxayna noqotay 370 pound. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddii uu ku qanciyay muuqaalka, ha ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada. Haddii ay tahay markaagii kugu horeysay nagu soo biir. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.